السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليga qaaliga dunida dacaladeeda meel walba ka joogtiin aad baan idin salaamay bacda salaan waxaan idin wadaa laabtaan maasha Allah waa alaab yaro health ah caadi ahayn kulay qofna ma qiyaasi karo waxa ay tahay balse waxa waaye markaad idin sheego ama aragtaan markaan aniga sameynayo baa garan kartiin so waxa waaye waxa maanta aan ka hadleyno ama idin la share gareynayo waa xulbada iyo faa'iidada ay leedahay maasha Allah xulbada aad bay u fiican tahay hadana habka aad u sameysanaysidna waxa waaye way ku xiran tahay iyo waxa waaye qaabka adiga aad rabtid inaad u isticmaashid maasha Allah aniga mar walba waan isticmaalaa gurigeygan waa laga isticmaalaa ila daawada saan u sameeyay inta waxaan ku haystaa 2 qaado xulbad ah in yar oo qiyaas oo saxanka waxa ugu jirto sidoo kale in yar oo qiyaas oo raqay ah aan biyo la dhigay intaas bisaan rabaa inaan ka sameysto koobkan waxa ugu jiro biyo kulul xulbadu waxay faa'iido badan u leedahay hooyada nuujiso si fiican bay u saacideysaa hooyada nuujinayso kale caanihi way saacidinaysaa cunug way ku cayilinaysaa adigana waxa waa jirkaaga way celinaysaa oo cayil kuma siinayso miisaankaaga hal meel bay ku celinaysaa marka hooyooyinka nuujiyo ha ka faa'iideystaan wax aanan ku cayileynin waxa waa caanihiina ku kordhinayo sidoo kale dadka xanuunsan oo kale way u wanaagsan tahay qofkii sokor qabo qofkii daysmanayado kale ama qofkii caadada kale aad ay u dhibeyso way u wanaagsan tahay calool majiirka infectionka dhabar xanuunka waxaas oo dhan bay u wanaagsan tahay marka hadii aadan adiga isticmaali karin kaligeeda sida aniga hadda u sameysanayo u sameysta waad ku faa'iideysin aniga kaligeeda ma isticmaali karo iyadoo la kariyana ma isticmaali karo qaraar badan ay leedahay marka waan dhibsanayaa that's why aniga ugu darsanayo raqayda hadda waxaan ku daray koob buuxo oo biyo kulul ah hal koob waayo oo weyn wuu buuxay biyo kulul oo karkar zaid ah waayo waxaan hadda aan ku qasaayo iyo 2 qaado oo powderka aheyd xulbada waayo waxa isku qasaayo kadib waa la dhigayaa waxaan sugayaa ilaa 2 saacadood kale markay 2 saac oo kale la yaalaan oo si fiican isku dhaxgalaan waxaan sameynayaa raqaydii tib oo la dhigay biyaha iyo waxaan isku shiidi doonaa xulbadaas biyo kale kuma daray kaliya waxaan ku darayaa biyaha raqayda aan ka saari doono bisaan ku dari doonaa intaas isku shiidayaa iyo xulbadii oo biyo cad oo biyo kulul aan ku daray insha Allah waa khabiro iska fudud hadaad doontid habeenkii biyo qabow waa la dhigi kartaa ani biyo kulul waxa la dhigaysay dhaqsi ay waxaan rabaa isku dhex gasho oo u qasmato si fiican hadda waxaan ku shubanayaa blenderkii ama qalaadadii aan ku shubanayaa kadibna waan soo shiidaa mashiinta cabitaanka lagu shiido waayo waxa aniga iskugu dari rabo kadib waxaan ku darsanayaa raqaydii biyaha bisaan kala baxayaa inta oo qolofta iska tuuraya ama lafta kadibna waxa waaye waxaan ku darsan doonaa dhacaankaas oo biyahaas kaliya rabaa inaan kaga darsado waa isku shiidayaa markaas dhadhan fiican bay yeelanaysaa qaraarka ma noqonayso wax yar oo maaxsara ah qaada ama 2 waa ku darsan kartaa hadaadan jecleen waad iska deynaysaa soo walaalaha aad baad ugu faa'iidi doontiin insha Allah soo tijaabiya hooyadii oo kale naas nuujinaysa aad bay ugu wacan tahay qofkii iscaateyn raban sidoo kale waxay kaloon u fiican tahay qofkii oo caadada dhib ku qabo kale marka sidoo kale dhabar xanuunka caloosho kale way u wanaagsan tahay insha Allah laga faa'iideysto ilmahana waa la siin karaa subaxdii hadii markaan saan u sameeyo kale qaadaan isticmaala fridge-ka gelinaya qaadaan ku isticmaala qaadada markaad ku isticmaalaysid cunug yar xitaa waa siisan kartaa marka insha Allah ilmaha yarna waxa waa appetite-ka u fureysaa wax badan buu qaadanaya cunugii wuu kuga cayilaya maasha Allah waaye every morning hadaad siisid ama subax kastaba hadaad siisid hal qaado okay waa qaraar zaidna ma ahan hadii oo aad cunugaaga kala cabsanaysid inuu san cabaynin waxaad sameyn kartaa oo kale raashinka kor ugu dareysaa ama familka xitaa markay xiliga cuntada kor ugu darsan kartiin hadii maraq uu yahay hadii oo bariis uu yahay wixii la cunaayo kale sida basbaaska oo kale kor ugu darsan kartaa maadaama ay dhanaan ay leedahay marka maasha Allah soo tijaabiya dadkii neceb waayo dad qaar waxay ku shiitaan canjeerado kale way ku darsadaan markay qasanayaan habeenkii haday rabaan way la dhigaan marka xulbada aad bay u fiican tahay laga faa'iideysto
sidaana u sameysta sida ugu fiican waxaa waaye oo qaraarkaas uusan kugu soo muuqanin. Aniga waxaa waaye waa nibca haddana daawadeed iyo faa'iidadeedaan ogahay. Maasha Allah saaid bay ii saacidaa xiliga kale oo ilmaha aan dhalo kale umushii waan isticmaalaa ilaa cunugayga uu ka gaaro 1 year waan siiyaa sanad uu ka gaaro kale faa'iido u leedahay waan arkay. Lafaha xitaa way ugu fiican tahay ilmaha. Maasha Allah waaye caadi ma ahan waa aragtiin kalarkeeda xitaa wuu isbedelay brown uu noqday sababtoo araqay oo xoogaha badanaan ku daray si aysan iigu soo dhadhamin oo kale oo dhadhanka tastiga oo raqayda ay qaadato dhadhanaan ay u noqoto. Marka subax kasta 2 qaad hadaad ka cabtid isbedel weyn oo fiican ka dareemay wax badan kama cabaysid kaliya 2 qaad 3 qaad ka cabaysaa dhabar infection iyo xanuun iyo waa isdiiseen. Maasha Allah caanahan way badinaysaa maamadii lactation ka ah kale way u fiican tahay. Insha Allah walaalaha qaaliga ka faa'iideysta. waxaan idinla jeclahay wixii ka faa'iidina ka faa'iideysataan waad mahadsantiin saad igu xiran tihiin many time channelka waa channelkiina insha Allah gabdhii ila soo hadlay iyo walaalihii kaleba waxa waaye arimo adduun iyo mashquul baa iska galay wax kale kuma maqnay idinma ilaawin waan soo gelinayaa waxyaabihi aad iga codsateen aad u mahadsantiin dhiirigelintiina la joogiina iyo qalbiyadiina wanaagsanba insha Allah channelku waa channelkiina